ninkan yarka ah wiilkan yarka oo Nick something la yiraahdo magaciisa oo reer Minnesota businessyadoodii iyo meelaha ganacsiga ay ku leeyihiin Soomaalida intuu tagay videoyaasha ka soo duubaya oo raba inuu iska dhigaya inuu wax ma aragtay soo kashifi doono oo Soomaalida uu ceeb ku qaban doono oo ma aragtay uu dadku u soo bandhigayo leeyahay waa kuwana dadkii waa idin hayaa waa kuwana waa soo qabtay anaa soo qabtay magac iyo sumcad uu raadsanaya cunigaas ilaa iyo muddo ku jira suuqa shalay iyo maanta ma aha ilaa iyo muddo suuqa waa ku jiray aniga videoyaal hore waxaan arkay waliba uu intuu soo ordo gabdho iyo wiilal dhalinyaro ah oo suuqa magaalada iska maraya oo microphone afka kula soo ordo uu la soo aado can I ask you a question? Can I ask you something? Intuu yiraahdo magacooda iyo aabahood iyo hooyadood iyo meeshay ku dhasheen iyo wax oo dhan soo qufaya horaan u arkay dhaqan aad iyo aad u foolxun runtii dhaqan aad iyo aad u foolxun qof marka aragtid microphone kula soo orday haddaan intaan ordo banaankaas aado oo qof dhaho can I ask you a question oo microphone afka ka geliyo markiiba ama microphone-ku iga tuuraya ama kaamaradu iga tuuraya waaba igu xanaaqayaaba Soomaali Soomaha qofka Soomaaliga aniga oo kala hadaan ula tago waa laga yaabaa inuu yiraahdo walaal maxay iga wareysanaysaa iga leex aniga laakiin qof adaan microphone afka ma la soo aaday oo ma yiri can I ask you a question xogaa Ismail yar inta loo sameeyaa ma la yiri wax allaala wixii calooshiisa ku jiray iyo xaafadu ka yimid iyo xaafadaha agaarkiisa oo dhan iyo wixii kala degnaa iyo wixii cuni jireen iyo wixii sameyn jireen iyo kulli fartu ka wada saaray dabeecadda noocaas aan leenahay yaaqo subxaanallah dabeecaddaas marka ninkan iyo wax la mid ah oo dhanna waa naga faa'iideysanayeen inta dabeecaddaas aan leenahay dabeecaddaas in la iska ilaaliyo waay dabeecad noo shaqaynaysa ma aha runtii dabeecad aan ku waliba xilliga maanta ah oo fiirsashada gaar ah loo fiirsanayo oo nala daba istaagan yahay aan u jeedno waxa dhacaya dabeecaddan oo balaabalaada tirada badan ah ha la iska ilaaliyo wiilkan keliyana ma aha waa dad badan waay oo soo shaqo tagay dad badanaa soo shaqo tagay oo dhalinyaro badanaa soo shaqo tagtay oo xataa qaar ah Minnesota xataa aanan ahayn oo gobollo kale idinkaga imaanaya si ay sheekadan intii ay socoto ee kulushahay raba inay sumcad ku raadsadaan sheekada intii kulushahay sumcad lagu wada raadsanayaa channel cusub qaar ah furtay oo wax kale aanan u furan inay views badan ku helaan Soomaalida marka ganacsatada Soomaaliyeed iyo dadka Soomaalida reer Minnesota iyo xataa meel kale iyo gobollada kale xataa inaa ka taxadartiin fiican oo iska ilaalisiin dadkan ajaanibta ah oo mikrofoonada iyo kaamarooyinka iyo la ordaya idinka intuusan wajiga idin kala soo galin iisanka idinka sanka kala gala kaamarada maxaa meesha ku keenay hadda waxaan u jeeday wiil Soomaali ah dhalinyaro Soomaaliyeed oo u tagay oo le maxaan rabtaa intay hadlaayeen waa sii duubaya intay buuqayeen waa sii duubaya xataa intay leeyihiin maxaa naga rabtaa iyo waa sii duubanaya inta yarta xataa sheeko ka sameynaya videogiisu ku dhisanaya adiga marka soo mid walba telefoon ma haysto qof walba telefoon waa haystaa intuu adiga hadalka kula soo galaya adigana hadalka la gal waa duubaysa waa dhamaatayba waxa uu sheegay waxaada kala sheeg iska daaya hadalka tirada badan Soomaaliyay hadalka tirada badan waqtiga uu shaqeynaa iyo waqti kala jira hadoo kale magaca hadii lagu yiraahdo maxaa rabtaa magaciga iyo weydiinaysaa taas inaad tirada fiican ما أنا واحد كل شيء ماشي وحلي إلى ذا هبلو وحنا لو صدق بدك تيبوا هذا البدنانت هذا يريو صومالي محمد